Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqankaab. Waa sheekadii libaaxa iyo maroodiga. Beri waxaa meel ku wada noolaa libaax, maroodi iyo xayawaano kaloo aad u tiro badan. Libaaxa waxa uu ahaa mid ugaadhsada xayawaanada kale ee kula nool duurka, halka uu maroodiguna ahaa mid cuna caleemaha iyo midhaha dhirta waaweyn. Maalin maalmaha ka mid ah libaaxii waxa uu dilay oo uu cunay deero. Markii uu ka dhergay hilibkii deerada waxaa afka u gashay laf, taasoo aanu iska saari karin. Libaaxii waxa uu dareemay xanuun badan. Waxa uu baadhay cid lafta ka saarta. Waxa uu u tegey dhowr xayawaan oo ku yidhi iga saara lafta, laakiin xayawaan kasta waxa uu ka cabsanayay inuu gacantiisa la galo af libaax. Waxa uu islahaa libaax waa uu qaniinayaa. Ugu dambeyntii libaaxii waxa uu yimi maroodi. Maroodigii waxa uu ku yidhi iga saar laftan afkayga jirta. Maroodigu waxa uu ahaa mid aad u awood weyn oo aan ka baqayn inuu libaaxu qaniino. Haddii uu qaniino waxa uu garanayay inuu iskaga fujin karo cagtiisa weyn oo uu ku joogsan karo. Maroodigii waxa uu bilaabay inuu gacanta geliyo afkii libaaxa oo uu ka soo saaro laftii. Maroodiguna waxa uu ahaa mid gaadhi la midhaha waaweyn ee ku yaala kaynta dhaadheer. Waxa uu u baahnaa cid midhaha u soo qabqabata. Libaaxii waxa uu bilaabay inuu si dhaqso ah ku fuulo geedkii oo u soo daadiyo maroodigii midhihii ku yaala geedka xaggiisa sare. Maroodigii waxa uu cunay midhihii oo u soo daadiyay libaaxu. Laga bilaabo maalinta, libaaxii maroodigii waxay ahaayeen qaar iskaashada oo midba midka kale waxa uu qaban karo oo uu qabto.